kulanti wacan saaxiibayaal meel walba joogtaan magacayga waa qaliiji weli waxaa ku guda jirnaa casharadani baro afka jarmalka waxaa wadnaa qaybtii 16aad oo aan maanta ku fiiri doono casus ama fiefele haddii ay xiisanaysid daabasho wacan صاحبيال أصحابتي فيديو دم بس إلى سعتي وعكوس شرحنا قاب كأي أشقيان nominative يا accusative أنا جو شجني إن nominative كا أو sentence كجلو قيبت subject تجاه أما قيبت sentence كقبل مايو إسلامر كان إنه من هذا أي وتان article هذا أصل أهان أي وتان article هذا سوكلاتود وحاش شجني إن nominative كلو قرتو فيا أما كوما مركي أقف شخص استعمال يسد إيو بس أتكو استعمال يسد شياشة سيدو كلو حنصبرنا سيدا accusative كأو شقيو anaga oo sheegnay in accusative kana asigana oo gal qaybta objectiga ama ficil lagu sameeyaha ama qaybta u dambaysa sentence-ka waxyaabaha lagu gartana waxa way ahaanay then oo su'aal iska weydiinaysid oo dadka caadiga isticmaalaysid iyo was oo shayaash isticmaalaysid aso then oo dadka aso then oo kuma oo dadka u isticmaalaysid iyo socletood was oo shayaash u isticmaalaysid maanta waxa isla fiirinayna saaxiibayaal dative-ka isla fiirinayna oo asigana jumlada ka gala qaybta ان objective كجلا sidoo kale tadna waxyaabaha lagu garto waxa kamid ah them ayaa kamid ah waxa isweydiinaysaa su'aasha them si aad u ogaatid in waxaan ay dative yihiin in kale tad salooyina soo diyaari saaxiibayaal si fiican fahantaan waxa jira qaybta nominative-ka jumlada ku soo qaadanaya jirta oo ahayd wir fahren mit dem Bus zur Schule wir oo qaybta subjective sentence-ka fahren oo verb-ka ama predicated-ka iyo inta soo hartay oo objectiga ama ficil lagu sameeyaha nominative-ka waxa ku sheegnay wuxuu galaa dhahnay qaybta koowaad sentence-ka ama subjectiga maxaa ku garanaysaa wer oder was fährt mit dem Bus zur Schule yaa way qofka ku tagaya iskuulka bas ku tagayo yahay waa wir anaga oo markaas nominative-ka marka waxaan rabnaa in isla jumladan oo aan ka soo saarno nominative-ka in haddana waxaan rabnaa ka soo saarno dative-ka meesha ka jirto ka soo saarno u baahan oo waxa isticmaalna markaas waxa isticmaalina meesha verb isticmaal meesha waxa isticmaalina them oo ayagana isku micno tahay oo kuma tusaale ahaan jumladu waxay noqonaysaa meesha waxa ku haysnaa wir fahren mit dem Bus zur Schule wir oo aan ku sheegnay subjectiga ama ficil sameeyaha fahren oo verbka ama predicated-ka iyo inta soo hartay mit dem Bus zur Schule oo in qaybta objectiga marka waxa weydiinaysaa meeshan mit them fahren wir zur Schule maxaan ku raacinaa iskuulka ama maxaan ku tageynaa iskuulka oo aan ku tageyno waxay tahay mit dem Bus oo baska ku tageen marka mit dem bustan waxay noo tahay markaas qaybta dative-ka dative-ka inta badan waxaa lagu gartaa mit had iyo nominka ama magaca waxa dhaxda soo gal dhan waxay noqonayaan wax dative ay noqonayaan mit oo mar walba article raacdo waxay noqonaysaa mar walba dative ay noqonaysaa oo ku garanaysa markaas marka waa qaabka mit dem bustan ayaa waxay tadirtaan marka mit dem bus ayaa hadda waxay taxanaysaa dative كان نقنيسها marka dadka qaar waxa laga yaabaa in isweydiinaysiin them iyo ver iyo waxaan maxay kala yihiin isla video ka xataa ku soo sharaxnay waxa sheegnay in masculine-ka male-ka ama labka oo marka nominative yahay qaata der marka accusative yahay qaata den iyo marka dative yahay oo qaata them hadda meeshan bus asal ahaan waxay qaataa der bus waa macnaheedu laakiin hadda maadaama dative noqotay dertii way ka baxaysaa oo waxa imaanaysa markan dem bus ay amaanaysa oo maadaama dative-ka wataan d waxa ku sheegnay marka nominative tahay accusative-ka noqonaysa d dative-ka isku bedelaysa der feminine-ka waxa waaye weiblich-ka wixii ama wixii dumar ama dhadig marka ayagana san isku bedelaan kadib marka intaas marka laga tago waxa dhaanay nominative-ka waxa lagu gartaa ver dative-kana waxa lagu gartaa them si u kala dhacday waa isku micno labadooda kaliya markii nominative la joogo ver waa kuma way oo san ay u qorantaa markii accusative la joogana waa then isku micno waa saddexdooda kaliya markii accusative-ka iyo nominative-ka ay isku kala bedelaan marka waa ver kuma then kuma them kuma waa isku micno laakiin nominative-ka waa ver sida ee der then u noqonayso ay ver waxay u noqonaysaa then dative-kana waxay u noqonaysaa them also them waa dative-ka ver then one accusative-ka ver oo nominative waa ver macnaha waa isku micno oo dhamaantood waxay u taagan yihiin kuma
marka si aad dative ku ogaatid waxaa iska weydiinaysa waxay tahay mit wem fahren wir zur Schule maxaan ku tagaynaa iskuulka oo waxaan ku tagaynaa iskuulka mit dem Bus baska aan ku tagaynaa tusaale kale soo diyaariya saaxiibayaal si saad idinkugu fududaato jumladda waxay aqrinaysaa tan tusaaleaan ninka la yidhaahdo cali gratuliert dem Mann cali waxa uu u mahadnaqay dem Mann ninka ayuu u mahadnaqay dem maxay u noqotay meeshaan man waxay qaataa deer ay qaataa oo waa dem Mann maadaama haddeertaan marka qaybta objectiga noogu jirto waxay qaadanaysaa marka waxay tahay dem ayay qaadanaysaa oo isla markaan dative ay tahay dem Mann ayay noqonaysaa oo deertii waxay isku bedelaysaa dem waxaa kale ogaataan in dativeka iyo accusativeka jumlad ay ka galaan qaybta objectiga nominativekana jumlad oo ka galo qaybta subjectiga ama sentence qaybta ka bilaabmaya marka su-aasha iska weydiinayna waxay tahay marka wem gratuliert cali cali iyo u mahadnaqay oo wuxuu u mahadnaqay dem Mann ayuu u mahadnaqay oo ah ninka ayuu u mahadnaqay also cali gratuliert dem Mann wem gratuliert cali cali u mahadnaqay wuxuu u mahadnaqay dem Mann oo ayadan ah markaas dativeka ku ah markaas sidoo kaleeto jumlo kale hoos kusoo diray saaxiibayaal oo ah mir fällt nichts ein oo ah einfalna kiimad meeshan wax marka ugu soo dhacaan mir fällt nichts ein aniga waxba iguma soo dhacaysa micnaheeda marka waxaa jirto mir dir uns iyo waxyaabo qeybo kaleeto kale oo dative ku khaas ah jirto iyo sidoo kaleeto dich mich iyo euch waxa camal ah oo aydan accusativeka aydan qaabkii u kala baxaan video ka soo diyaari doonaa laakiin hadda miyadan bis ayaa waxay u taagan tahay dative ayay u taagan tahay waxa waaye tusaale ahaan waxa waaye ish mish iyo miya saddexdaas qaba u kala qaybsamaan siday u kala babaxayaan ay waxay yihiin video kaga soo hadli doonaa marka haddeertan waxaa qaadanaa clear waxay tahay in miya markaas askri weydiisid wem fällt nicht ein yeesan waxba kusoo dhicinin oo ah miya aniga waxba igu soo dhicinin also marka ayadan waxay noqonaysaa dative ayay noqonaysaa oo haddii aad miya ku aragtid miya wax kale ma ahan waa dativeka oo ish waa micnaheeda haddaad tusaale u dambeya isla fiirin saaxiibayaal beta ninka la yidhahdo hat der Lehrerin das Heft gegeben ninka la yidhahdo beta waxa uu siiyey Lehrerin waa macalimadda naagta macalimadda ah waaye der Lehrerin die bay ahayd awel kor waxaa dhan wixii feminin ah waxay qaataan waxaa dhan wixii feminin ah waxay qaataan die ayay qaataan baa dhahnay laakiin hadda maadaama dative meesha oo joogo waxay qaadanaysaa der Lehrerin waa macalimadda waxaa dhahnay wixii feminin ah ama dhadig ah ama vibish ah waxay qaadanayaan d maadaama haddaysan dative tahana waxay qaadatay der asal ahaan die Lehrerin bay ahayd hadda waxay noqotay der Lehrerin maadaama ay dative tahay wuxuu siiyey macalimadda heft uu siiyey warqadda la jeexaya lahaa ayuu siiyey marka su-aasha isweydiinaysa waxay tahay wem hat beta das heft gegeben beta ninka la yihahdo yaa waay qofka uu siiyey heftiga ama buugga uu siiyey yaa waay tahay wuxuu siiyey marka der Lehrerin oo ah macalimadda oo ayadana markaas nagu taagan in ay dative tahay oo waxaa ku garanaysid in ay tahay micnaha marka iska weydiiso su-aasha ah wem iyo sidoo kaleetood in die Lehrerin ay isku bedeshay der Lehrerin ay isku bedeshay oo ku muhiim tahay inaa automatic u ogaatid in maadaama waxaan dumar ay yihiin der dative ay ku qaadatay inaa ogaatid in meesha keliya femininka der qaadanayso ay tahay dative inta kaleetoodna ay iska leeyihiin marka tabeelahan wax badan oo idinka caawinayo waa doorka kuliyaha ku socon kartaa mar walba haddii ay xifdisaan ku xifdisaan in nominativeka accusativeki der ee accusative noqonayso den oo inta dem noqonayso oo aad saan maskaxda ogaysaa mar walba haddii lagu sheego shayga nomin wax oo asal ahaan u qaadanayo adiga ayaa bedelan karta noocaa doonta ka dhigi kartaa laakiin haddaadan tabeelahan aqoonin haddii si walba lagu sheego articleka nominka meel gooniya usii gudbi kartid malahan qaybta u dambeysa saaxiibayaal ayadan tusaalaha ah isla tabeeliyan soo qaadanay anaga rabna qaybta dativeka in aan qayb walba jumlad gooni ah ka bixino si aad si fiican kale ugu sii fahantaan qaybta koowaad waxaan dhan waxaan ku garanaynaa wem ayaan ku garanaynaa markaa rabna wax iska weydiino dativeka oo sentence koowaad ish danke dem Großvater waxa aan u mahad celinayaa danken bekimaad meeshaan u mahadnaqa ish danke dem Großvater waxaan u mahad celinayaa Großvater waxaa la dhahaa aabaha aabihiis awowga u mahad celinaya oo der Großvater bay ahayd haddeertaan maadaama dative tahay waxay noqotay dem Großvater bay noqotay sidoo kaleeto haddii aan dii soo qaadano du antwortst der Reporterin waxaa u jawaabaysaa antworten bekimaad meeshaan oo jawaabid ah du antwortst der Reporterin waxaa u jawaabaysaa naagta wariyaha ah ayaa u jawaabaysaa oo die Reporterin bay ahayd
hadda maadaama dative tahay waxay noqonaysaa der reporterin iyo tusaale u dambeysay oo aydan das ah hilft dem Mädchen asiga hilft bekimaad meeshan oo caawid ah hilft dem Mädchen waxa caawinaya gabadha ayuu caawinaya oo das Mädchen bay ahayd maadaama hadda tan dative imaaday waxay noqonaysaa dem Mädchen marka intaas ku soo gabagabeynayna saaxiibayaal maadaama aadan noominada ama magacyada Jarmalka dhan aadan xifdi karin waxa ku fiican oo ku fudud in aad marka hore xifdisid qaabka tabeelahan oo isku bedelayo kadib markaan nomin ama magac cusub baratid macalinka weydiin kartaa dhigi kartaa ma ay sheegaan article ku qaataa markii article-ka asalkiisa lagu sheego kuwan kale adiga ayaa ku bedelan kartid marka tabeelahan role muhiim ah ayuu ka ciyaaraya fahanka dative-ka accusative-ka iyo nominative-ka ama casuska guud ahaan ah haddii wax videoga macna ku keen like share haddii aad wax qalad ku aragtay ama aad su'aal qabtid marnaba ha kala bashkina la soo xiriirtid inta kulanka xiisa badan kulmi doona anigu qaliiji ah fi amaan illah